kadib markii maalintii Talaadadii aan ka soo gudubnay malaayiin u dhalatay dalka Mareykanka ay codadkoodu ay ka dhiibteen islamarkaana kuwaasi oo rajeynayay in ay doortaan madaxweyne cusub xilli ay ku tartamayeen xilka madaxweynaha dalkaasiba ay ku tartamayaan madaxweynaha iminka waqtigiisu ilaaday ee Donald Trump iyo hogaamiyaha dimuqraadiga ahaan hore u soo maray madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka John Biden ayaana weli qof ku guuleysan doorashada madaxtinimada ee Talaadadii ka dhacday dalka Mareykanka sababo la xiriira codadka oo lagu soo diray boostada oo weli ka soconaysa gobollo muhiim ah oo ku yaala dalkaasi Mareykanka. madaxweyne Donald Trump iyo musharax xisbiga dimuqraadiga John Biden ayaa labadaba guulo ka gaaray gobolladii la filay in ay ku kala baxaan, laakiin waxa aanan la kala go-aan ka gaarin oo musharaxiinta aad ay isugu dhow yihiin 5 gobol 2 ama 3 ayaa la go-aamin doonaa saacadaha soo socda natiijada kama dambaysta ah ee doorashada ninka kusoo bixi kara. gobolada Georgia iyo Pennsylvania oo dhaca dhinaca bari ee dalka Mareykanka kaas oo ku guuleystay madaxweyne Donald Trump iyo John Biden oo isna laftiisu ku guuleystay gobolada Arizona iyo Nevada oo galbeedka ku yaala ayay saraakiishu weli tirinayaan malaayiin codad ah oo lagu soo diray boostada, halka kuwa kalena shacabka Mareykanka ay horey codkoodu ay u dhiibteen kuwaasi oo natiijadooda la filayo in maalmaha soo aadan amba saacadaha soo socdaba laga yaabo in lagu dhawaaqo. Trump ayaa hogaaminaya Georgia iyo Pennsylvania halka Biden uu hogaaminayo gobolada Arizona iyo Nevada, laakiin weli ma cadda guusha rasmiga ah cidda qaadan doonta. waxyar kadib markii uu xaqiijiyay in uu guul ka keenay gobolada Wisconsin iyo Michigan ayuu musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah John Biden xalay taageerayaashiisa u sheegay in marka ay dhammaato tirinta codadka uu ku kalsoon yahay inuu noqon doono madaxweynaha soo socda ee shacabka Mareykanka. Laakiin madaxweynaha iminka talada haya ee Donald Trump oo laga yaabo in dhulka lagu dhifto ayaa shaki ka muujiyay qaabka loo tiriyay codadka gobolada muhiimka ah ee uu shalay ku guuleystay John Biden iyo kuwa hadda uu kaga hogaaminayo. Sida la sheegay, Biden ayaa inta badan codadka waxa uu ku hogaaminaya madaxweynaha iminka talada haya ee Trump, isagoo codsaday in dib loo dhigo halka uu maxkamadda sare ee dalkaasina uu ka codsaday in gebi ahaanba la hakiyo tirinta codadka gobolada oo kaga guuleystay John Biden. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa warbaahinta caalamka waxa ay isha ay ku haysay doorashada dalka Mareykanka. Donald Trump ayaa ciriiri waxa geliyay John Biden, waxaana laga yaabaa in madaxweyne Donald Trump oo dad badana siyaasadiisa aanan aad u jecleen oo meesha uu ka bixi karo, balse lama saadaalin karo doorashada Mareykanka ee weli codadka ay harsan yihiin. Balse dadka gorfeeya siyaasadda Mareykanka ayaa waxa ay farta ay ku gudeen in Trump laga yaabo inuu meeshaasi uu ka baxo. Donald Trump iyo John Biden ayaa da'dooda lagu qiyaasay, halka John Biden da'diisu qiyaas ahaan lagu sheegay 78 jir, halka madaxweynaha iminka waqtigiisu sii ilaanayo islamarkaana laga yaabo in dhulka lagu xaaro ee Trump da'diisa lagu qiyaasay in uu jiro 74 sano. Haddaba la arki doono natiijada kama dambaysta ah ee kasoo baxda xilli dadka intooda badan ay saadaalinayaan inuu kusoo bixi karo John Biden, hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ah ee dalkaasi Mareykanka.